بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع مبارك ولا لا قالقا وحان إذن ليهاي جمعة خير كذي فضل إذا الله نصيه لما انتين بأن كددا نصلي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنكو إلى ما انتوكلوا جمعة صلي النبي أن آت بذنه waxaanu ku jirto saacatul ijaaba insha Allah inaan duceysano suuratul kahf akhrisano alla bari badan la imaano insha Allah waan ku dadaalno soo dhawaad walaalaha qaaliga waxaan leeyahay hore noola joogteen oo mahadsantiin haddii aad cusub tahay insha Allah soo dhawo channelkaaga subscribe ku xiro gambaleelkana saaro biidni raxmaan insha Allah share garay inta khayrka la jeceshihiin walaalaha qaaliga dhammaan muraadkeena macsileen ilaahna siiyo meeshan ka oomana laha naga ontiro alladan ka duceynayna samada Allah ka aqbal aamiinteeniyo آمين ملائكة الله كل مية اللهم آمين ولا لا قالق إن شاء الله قصص كينا مانتا وقصص كالغارك صلى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قصدين كوبات وحي لهذا هاي وحن كد ذالي إن بدن إنا كعل اليو آخرين تصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولب إبراهيم يذا سببته أمر كستوحان مغلي جري إن مركي الوعل اليو ومر walba inta faa'iidada aad helayso ay ka sii badan tahay mar kasta inta markaa ku celceliso faa'iido badan in la helayo ayaan maqlay waxayna leedahay waxaan daruuri u ahaa inaan badiyo sababtoo ah waxa ay haystay mashaakil aad iyo aad u weyn mashaakilkaas mar kasta inta oo soo xasuusto waxaan si labalaabayay ay dhahday inaan akhriyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada waxa ay haystay mashaakil maadi iyo nafsi aaba waxay tiri waxaan mar kasta inta akhrinayay يعني وانسي حوجناي يعني شغل قابكان أخرنا صلاة إبراهيمية ولب أنا وقلبضة كدري معي مروى البنت وكل اليو ومشاكل كي وبطن مروى البنت وحيد حلقة ويسود دقاي waxay tiri alxamdulillaah sidii aan u wada ku celcelinta saliga nabi sallallahu alayhi wasallam oo ibraahimiyada alxamdulillaah arrimihiga ilaahay uu ii xaliyay waliba siyar oo kooban alxamdulillaah murugadeedii walwalkeygii yani mashaakilaadkii maadiga oo dhaqaalaha iyo tii nafsiga aheedbo alxamdulillaah ilaahay uu iga xaliyay ay leedahay hamigay oo dhan ilaahay hal mar ayuu iga suuliyay sababtoo ah ku celcelinta saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada waliba maalin walba intuu si yaqiin ah ayaan u akhrinayay oo maalin walba inaan badiyo ma ogiye intii kama soo nusqaaminayna ayay leedahay alxamdulillaah natiijo aad iyo aad qurux badan waan ka dhaxlay ay dhahdo oo aan kuma khasaarin qabkaan u akhrinayay salaatul ibraahimiyadana waxay ahayd allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sidaas ayaan si yoomi aan u akhrin jiray ay leedahay walaasha qisadeena kale ee laga arkay saliga nabi sallallahu alayhi wasallam waxay leedahay gabadhani waxaan dareemi jiray mar walba inta diiq cariiri walwal mararka aan akhrisanayo cashiraadkayga iyo imtixaanadeyda waxaan dareemi jiray inuu shay yani i riixayo oo i riixayo inaan yani waxaan barto oo dhinkiisa oo iga riixayo oo iga elinayo alxamdulillaah markii dambe waxaan la sheekaystay sheekh kala mid ah culimada wuxuun igu nasteexeeyay oo igu yareeyay dhahday inaan markasta inta joogteeyo ducada iyo saliga nabi sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada si maalinlaan oo akhriyo si aan faa'iidadeeda u arkay dhahday alxamdulillaah waan laazimay aniga oo duceysanayo hadana akhrinay saliga nabi sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada maalintii kun mar ayaan akhrin jiray ay dhahday hada awoodan waa ka badan jiray laakiin kunkaas mar ayaan yani xoog iyo juhdi ku saari jiray ay dhahday alxamdulillaah xilligaas laga bilaabo way iga zuushay ay dhahday waswaaskii iyo shaydaankii iga mancinayay inaan wax barto oo imtixaanaadkayga cashiradeedii iga mashquulinayay ay dhahday imtixaankana waan ku baasay sanad daraasaadkan xigtay laga arkay saliga nabi sallallahu alayhi wasallam waxa ka sheekeynaysa gabadhan waxay leedahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxay tiri
aniga waxaan ka arkay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba siiqada ibraahimiyada waxay tiri waxaan ahaa gabar ku dhibtoon dhiiga xaydka markuu bil kasta ii imaanayo wuxuuna ii imaan jiray dhahday anigoo aad iyo aad ugu xanuunsanayo dhir iyo kaniiniyad iyo waxaas oo dhan inta ka qoosto ayaan xitaa cirbada xanuun baabiye qaadan jiray dhahday maalintii 3 mar ilaa 4 mar ayaan isduri jiray dhahday xadkii aan qaadanayo cirbadaha ayaa iga tambatay aad iyo aad ayaan ugu walwalay markii dambe intana waxaan bilaabay dhahday in aan bilaabay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam xilliga uu iimaanayay dhiig xilliga uu iimaanayay waxay tiri alxamdulillah waaba sida aniga oo cirbad xanuun baabiye afoorta qaatay oo kaleento ayaa xanuunka iga tagay dhahday oo xanuunkii ma aanan arkin waan ku waday maalintii oo dhan saliga nabiga ayaan khadnay cirbadii aan qaadan jiray uma baahanin dhahday maalintii labaad saddexaad ilaa oo iga dhamaaday dhiig xilligiisii alxamdulillah waxay tiri saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan ku faa'iiday waxay tiri aad iyo aad ayaan u ooyay sababta waxay dhahday nafteyda ma aanan ku kalsooneen oo waxaan u maleynayay inaan sidan fiina abadkan ilaa nolosheeda iska bedelayso oo aan gabarnimada ka baxay inaan sidan ugu xanuunsanaan doono balse alxamdulillah markii aan ilaahay ku kalsoonaaday oo aan bilaabay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba qaabka ibraahimiyada alxamdulillah waxay tiri ilaahay uu igu caafiyay oo waan ku guuleystay dhahday waxa ka sheekeynaya wiil waxa uu leeyahay aabahay wuxuu iiga sheekeeyay ninkaas oo guur ka burburay muddo 5 mar ah 5taas marna guurkiisa waxa uu burburay ayuu leeyahay in uu yahay madalays ama uu awlaad dhaleynin waxa uu yiri u fiirso sheekadan waxa uu yiri wiilkan dhalinyarada ah waxa uu imaaday asaga oo murugaysan oo walwalsan oo ka ashtakoonayo tabardaradiisa iyo dicfigiisa iyo xaaladiisa aabahay ay uga sheekeeyay oo yiri aabahayna waxa uu kula dardaarmay inuu akhriyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba qaabka ibraahimiyada asagoo u niyeysanayo in ilaahay kurbadiisa iyo hamigiisa iyo walwalkiisa uga faydo waxa uu yiri waa u qaatay wiilkii sida ay u qaatay taladii waxa uu bilaabay inuu akhriyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada alxamdulillah waxa uu yiri wax yar oo bilo yar kadib uu soo noqday asagoo u bishaareynay aabahay oo ku dhahayo sheekh waan ku guuleystay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam zawjadaydan ilaahay wuxuu ku arsaaqay uur ee la soco taasi waxa ila sheer gareeyay ayuu dhahay aabahay waxayna kamid tahay qisaska laga arkay faa'iidada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada qisadan kalena waxa ka sheekeynaysa haweeneydan waxay leedahay waxaan laazimay inaan ku celceliyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada maalin walba kun mar ayaan joogteynayay ay dhahday oo ii ahayd routine alxamdulillah waxay tiri si degdeg ayaa waxaan ku arkay isbedelo fara badan oo nolosheyda ah waxaan ii xaqiiqoobay rajooyin fara badan oo aan lahaa waxaana kamid ahayd ay dhahday inaan cumrada ku tagay oo ilaahay iigu fududeeyay markii aan cumrada ku tagay oo ilaahay iigu fududeeyay arrinkaas waxaan bilaabay ay dhahday inaan aad iyo aad uga sii helay ibraahimiyada salaatul ibraahimiyada fadligeeda markii dambe waxay dhahday maalmaha qaar iyo habeenaha qaar i'tikaaf ayaan sameyn jiray oo maalintii waxaan akhrin jiray ilaa 3000 oo mar oo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada alxamdulillah waxay tiri raajooyinkii aan lahaa oo dhan ayaan ku helay adduunyada ayadoo lugeynaysa ay agteeda imaatay meesha aan ka dab oodi jiray adduunyo oo raadin jiray ilaahay wax kama baryo oo ma baahdo ma ku fikiro shay ilaa waa hela ay dhahday waxaan idinku nasteexaynayaa dhammaantiin inaad ku celcelisaan saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba ibraahimiyada kalaasi ana waxa uu ka sheekeynayaa faa'iidada oo ka dhaxlay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullah waxa uu yiri muddo 4 sano ah waxaan wadaa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri miraha aan ka dhaxlayna waxa kamid ah inaan ku guursaday inaan mashruuc yar aan ku furtay mashruuci guuleystay haddana waxa noqday ayuu dhahay taajir alxamdulillah ilaahay mahad iskale fadligaasna waxaan ku helay ilaahay ka sokow saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ku celcelintiisa iyo raatibka aan ka dhigtay muddo 4 sano ah qisadan kalena waxa ka sheekeynay wiilkan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan jeclaystay inaan tajrubadeedii saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam aan kaga sheekeeyo aniga waxaan lahaa muddo 10 sano ah rajo iyo riyo
taasoo yacni ay suurtoobi weysay 10 sano. Alxamdulillaah markii aan bilaabay qiyaamuleyl duco istighfaar saliga nabi sallallahu alayhi wasallam. Alxamdulillaah in ka yar 5 bilood ayaan ku helay rajadeydii aan muddada sanadaha aan rajeynayay ayuu dhahay. waxaan ku helay yacni rajadaas iyo riyadaas 10 sano ah aan waay markii aan joogtay xarig ilaahay aan xoojiyay oo joogtay qiyaamul-leylka alla bariga istighfaarta iyo saliga nabi sallallahu alayhi wasallam. intaasna waxaan u niyeysan jiray in ilaahay rajadeyda iigu dhameeyo, ilaahayna wuu iigu dhameeyay rajadeydii. ilaahay ku mahadsan. walaalaha qaaliga qisaskeeni laga arkay saliga nabi sallallahu alayhi wasallam intaas ayaa maanta ku soo gabagabeynaya haduu ilaahay yiraahdo. hadda halkan soo gaartay insha Allah commenti ku soo qor sallallahu alayhi wasallam. jazakallahu khair. ilaahay ka abaal iyo jasasiyo waqtiga aad daawatay dhageysatay insha Allah inuu dhiirigelin ku noqdeen waa rajeynayaa. inta aad la jeceshay khayrkan u sii share gareey. ilaahay subhanahu wa ta'ala gafkeena geerideena ma kulmiyo toobatan nasuuxtan qabla al-maut. allah nu warzaaqo. ilaahay dambigeena kii hore kii dambe mid yar iyo mid weyn mid ognahay mid ogeyn ba ilaahay noo dambi dhaafo. naxariista ilaahay adransiyo adduuni aakhirabo. ilaahay waxaan jecelnaa oo janno ugu horeeysa hana siiyo, waxaan nacabna oo naar ugu weyntaayna ilaahay jirkeena ka badbaadi adduuni aakhirabo. waalidiinteena ilaahay u naxariista sidii anagoo yarin noogu naxariisteen oo noo barbaariyeen. ilaahayna ha u naxariisto adduuni aakhirabo. ilaahay subhanahu wa ta'ala acmaasheena yar oo wanaagsan oo sameeysanayno mid la aqbalo oo kor loo qaado Allah ka yeelo. soonkeena, salaadeena, sadaqadeena, ducadeena, dhammaan acmaasheena wanaagsan oo dhan ilaahay naga aqbalo biidni raxmaan. walaalaha qaaliga intii xanuunsan Allah noo caafiyo, inta caafimaad qabta Allah u siyaadiyo, inta awlaad haysan awlaad baari oo saalixiin oo tayibiin oo caafiyin dhabta Allah u soo saaro. inta guur la'aan gabdho iyo wiilalba guur xalaal ah Allah siiyo oo ku doorsadaan oo awlaad khayr qabta oo baariyaal ah كهلان آمين يا رب. إله ودعدينا نقبل أرضا كدعينا سمد الله كأقبله. آمين تاني آمين الملائكة الله كل ميو. إله سبحانه وتعالى وحن ويدي سنينا أمورين أردن ونسهل عليس كان يستفضلنا وبدلوا قربضة فرحنا وبدلوا. إله سبحانه وتعالى انت ديميسن ديمها الله كجود. انت حبسيدك وجرت حبسيد الله كسودي. انت شغله انا شغل خير قبت الله سيه قفل بمراد كيسو مع سلين الله سيه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله ما توكلنتو waxay leedahay saacatul ijaaba insha Allah aan ka faa'iideysano quraan akhriska aan badino dhikriga ilaahay iyo tasbiixda saliga nabi sallallahu alayhi wasallam. ducada muraadka aad leedahay ilaahay weydiiso u bandhigo biidni raxmaan. ilaahay waa ghafuur raxiim waana shadiidul ciqaab. ilaahay waa naxariis badane. insha Allah kaliya wuxuu rabaa Allah inaan u noqono adoomo ilaahay oo aan u noqono mar walba inta oo ilaahay dunuubteen inuu noo dhaaf aan weydiisano biidni raxmaan. ولا لا قالقة. جزاكم الله خيرا. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. wixii ra'yi iyo fikir aad qabtaan barta comment igu soo qora. hadaan wax ku kordhinayo, hadaan wax ka dhimaayo, hadii aad yacni wax aad ka faa'iido ama qiso aad hayso insha Allah qaybta comment-iga waad igu soo qori kartaa. hadii kalena waad igula soo wadaagi kartaa WhatsApp-ka cod ahaan ayaad igu soo duubi kartaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fi amaanillah.